daawadayaal madaxweynihii hore ee Soomaaliland Daahir Rayaale Kaahin ayaa maanta waxa uu soo gaaray magaalada Hargeysa waxaana halkan ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland. Daahir Rayaale Kaahin ayaa waxa uu qayb ka yahay wufuudda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee lagu casuumay inay Soomaaliland kaga qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliland. waxaana halkan ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda madaxtooyada iyo gudoomiyaha xigeenka baarlamaanka gudoomiyaha xigeenka xisbiga kulmiye iyo sidoo kale mas'uuliye kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye. markii uu qolka nasashada soo gaaray Daahir Rayaale Kaahin iyo marwadiisa Huda Barkhad waxa halkaas islaan iyo soo dhaweyn u muujiyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumaddiisa oo laga xusi karo wasiirkiisii amuuraha dibadda Cabdulaahi Maxamed Ducaale iyo wasiirkiisii maaliyadda Ambassador Cawil wasiirkiisii duulistii hawada Cali Maxamed Waran Cadde iyo xubno ka tirsan xisbigiisii udub. sidoo kale waxa halkaas ku sugnaa oo soo dhaweeyay wasiirro ka tirsan xukuumadda Axmed Maxamed Siilaanyo oo ay kamid ahaayeen wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi wasiirka duulistii hawada Farxaan Aadan Haybe wasiirka hawlaha guud iyo guryeynta Cali Xasan Maxamed iyo mas'uuliyiin kale. waxaana warbaahinta la hadlay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi iyo gudoomiye xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle. saaka waxaanu halkan farxad weyn oo ah in aanu mas'uuliyiinteedan kala duwan qolka nasashada gegida dayuuradaha caalamiga ee Cigaal International Airport aanu ku soo dhaweyno madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Daahir Rayaale Kaahin iyo marwadiisa Huda Barkhad. madaxweyne Daahir Rayaale waxaanu ku soo marti qaadnay xafladda caleemasaarka iyo xil wareejinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha la doortay inuu nagala soo qayb galo waayo waa madaxweynihii ku suntanaa geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah. waxay muujinaysaa sawir caalami sawir qiimo weyn qarankan sumcad ugu suntan oo ah laba madaxweyne oo xilkii ka degay iyo kii saddexaad oo la wareegaya ummadasha fadhiyo doona bay qarankan ka muujinaysaa oo dunida kale maanta nasiib ka haysan. sharaf bay inoo tahay in dimuqraasigii inoo bilaabmay dhowr iyo 10 sano ka hor uu maanta qangaar yahay. waxa Rayaalena faan u ah oo maanta uu ku faanayaa in uu midhihii goosanayo geedkii uu beeray dimuqraadiyadda. tusaalaha inuu Afrika u nahay 10 kale inaga baranayaa ka weey waxa barbar yaalo dee dunidii ka dhacay madaxweynayaal muddo fara badan 10 sano ka talinayay dalal aynu darisnoo Yamani ka mid tahay oo dee aynu daawanayno in meydkoodii dhulka la jiiday. marka waxaynu baraynaa dunidan saddexaad ama mandiqadan aynu ku noolahay bariga Afrika iyo Afrika guud ahaanba sharafta ay leedahay inaan kursiga lagu dhigin. sharafta ay leedahay yani in si nabadgelyo awoodda la isugu wareejiyo qori isku dhiibno. ugu dambeynna waxa halkaas ka hadlay Daahir Rayaale Kaahin oo warbaahinta u sharaxay soo laabashadiisa. salaam baan ugu gudbinayaa hamaatikayga maanta waxaan u yimid inaan ka qayb galo haddii Ilaahay yiraahdo xafladda labada madaxweynaha aniga bedelay iyo madaxweynihii ka dambeeyay ee xilka guula kala wareegayaan taasoo lagu marti qaaday. mudane Daahir Rayaale Kaahin doorashadii adiga lagu bedelay kadib waxa dhacday doorasho adag oo aan hore loo arag. kulli waad la socotay wararka sidee baad u aragtay doorashadaas iyo sida caalamka mar ay dhacday ma jirin mar ay doorashada jilicsan dhacday ma jirin. afar doorashaan qabtay midna ma jilicsanayn. doorashada ninkii bilaabay aanu ahaa imaatikaygu wuxuu ka mid yahay dimuqraadiyadda Maxamed Kaahin iyo halgankii bay sheeganayaan anna dimuqraadiyadda sheeganaya. Daahir Rayaale ayaa sanadihii dambe intii uu ka maqnaa xilka madaxtinimada waxa uu ku noolaa dalka Faransiiska. waa Cabdishakuur Day Maxamed, Cable TV.